daawade kusoo dhawow channelkan Sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay ciyaaraha subscribe sar channelkeena gambaleelkana furo si aad u noqoto qofkii ugu horeeyay ee hela muuqaaladeena cusub. Assalaamu calaykum dhageystayaasheena ciyaaraha 24 tube kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta ciyaaraha qodobada barnaamijkeena maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah Real Madrid oo lagu soo waramay inay Ajax kala heshiisay saxiixa Dani van de Beek goorta uu dhameystirmi doono heshiiskaasi oo la ogaaday. Liverpool oo rikoorkeeda suuqa u jabin doonta xidig. Arsenal oo wada hadal rasmi ah la furtay kooxda Paris Saint-Germain xidig ayay ka doonaysaa. Solskjaer oo ka warbixiyay xaaladda dhaawac ee Marcus Rashford waqtiga uu Paul Pogba isaga tagi doono Manchester United oo la kashifay. Barcelona oo ku dhawaaqday in kooxdeeda uu ka tagay Jean-Claire Todibo iyo faahfaahinta heshiiska uu ku baxay. taariikhda iyo waqtiga la ciyaari doono kulanka labaad ee El Clasico ee Barcelona iyo Real Madrid oo la shaaciyay. xidiga sanadka wadanka Belgium oo lagu dhawaaqay. Badaas iyo qodobo kale ay kamid yihiin suuqa kala iibsiga wargeysyada ugu dambeeyay caalamka ayaad ku maqli doontaa intuu barnaamijkeena hawada ku jiro. Waa aniga oo Dalmar Cabdi Diiriye mar kale ku soo dhawaada barnaamijkeeni ciyaaraha. aynu ku bilownay wararka ka imaanaya dalka Holland ayaa sheegay in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid saxiixa xidiga qadka dhexe ee Dani van de Beek kala heshiisay kooxda Ajax Amsterdam. Dani van de Beek ayaa la xiriirinaya kooxda Real Madrid ilaa ay xagaagii hore iyadoo ay kooxdu heshiis shakhsi ah la gaartay xidiga 22 jirka laakiin xidiga ayaa usoo dhaqaaqi doona Santiago Bernabeu xilli ciyaareedka 2020. Real Madrid ayaa doonaysa inay Dani van de Beek hesho xagaaga dambe xilli ciyaareedkan kadib qaab ciyaareed cajiib ah uu soo bandhigay xilli ciyaareedkii hore. Wargeyska Holland ka soo baxay Telegraph ayaa sheegay in kooxda Real Madrid dhigeeda Ajax kala heshiisay saxiixa xidiga Rehoran kaasoo ku soo biiri doona kooxda Real Madrid dhamaadka xilli ciyaareedkani. Isla wargeyska ayaa sheegay in Dani van de Beek noqon doono saxiixa ugu horeeya kooxda Real Madrid xagaaga dambe iyadoo bixin doonta lacag dhan 55 milyan oo euro. Kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay la xiriirtay wakiilka xidiga qadka dhexe ee kooxda Bayer Leverkusen ee Havertz kadib markii uu ka mid noqday xidigaha ugu fiican reer German xilli ciyaareedkan 20 sano jirkan Kai Havertz ayaa xiise ka helay kooxaha reer Yurub ugu waaweyn ay ugu horeyso kooxda Liverpool. kooxaha Manchester United, Bayern Munich, Barcelona iyo Real Madrid ayaa dhamaantood isku diyaarinaya inay dalab ka gudbiyaan xidigan qadka dhexe xagaaga dambe. si kastaba ha ahaatee wararka ka imaanaya dalka Spain ayaa sheegay in kooxda Liverpool haatan ba xiriir la sameysay wakiilka xidiga reer German. wararka ayaa intaasi ku daraya in hogaamiyayaasha horyaalka Premier League diyaar u yihiin inay bixiyaan lacag dhan 107 milyan oo euro oo lagu burburin karo heshiiska xidigani Bayer Leverkusen. kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramay inay wada hadal rasmi ah la furtay kooxda Paris Saint-Germain si ay u helaan saxiixa xidiga bidixee Kurzawa sida ay sheegayaan wararka. Kurzawa ayaa ku jira bilihii ugu dambeeyay heshiiskiisa kooxda Paris Saint-Germain waxa uu si xor ah uga tagi karaa kooxda reer France dhamaadka xilli ciyaareedkan laakiin Arsenal ayaa doonaysa inay hesho saxiixa xidigani. wararka ka imaanaya dalka Faransa ayaa sheegay in sidoo kale Gunners haatan ba la hadashay wakiilka xidiga Kurzawa iyadoo ku soo bandhigtay 5 sanadood oo heshiisa kadib markii uu Mikel Arteta u sheegay in kooxdu ay dhameystiri doonto saxiixa xidigani. Kurzawa ayaa xor
noqon doona dhammaadka xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado heshiiska, laakiin Arsenal ayaa doonaysa inay saxiixa hesho inta lagu guda jiro bisha tan January sida ay sheegayaan wargeyska RMC Sportka. Gunners ayaa xagaagii hore 25 milyan oo euro kula soo saxiixatay daafaca Kieran Tierney, laakiin 22 jirka ayaa dhaawac garabka uga maqan kooxda iyadoo aan la ogeyn waqtiga uu ku soo laaban doono. Arsenal ayaa doonaysa inay si degdeg ah u dhamaystirto saxiixa xidiga Kurzawa si ay saxiixa xidigani ugu garaacdo. Arsenal ayaa doonaysa inay si degdeg ah u dhamaystirto saxiixa xidiga Kurzawa si ay ugu garaacdo kooxaha Chelsea iyo West Ham kuwaasoo xidigani doonaya iyagaba. tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka hadlay dhaawacii soo gaaray xidiga ugu muhiimsan kooxda Manchester United xilli ciyaareedkan Marcus Rashford kulan ka tirsan FA Cup-ka oo ay la ciyaaraysay Wolves. Man United ayaa 1-0 ku garaacday Wolves kulan ka dhacay Old Trafford iyadoo Juan Emmanuel Mata uu go'aamiyay kulankaasi. Marcus Rashford ayaa bedel ku soo galay daqiiqadii 63 waxa uuna dhaawacmay daqiiqadii 77 ee ciyaarta isagoo isaga baxay daqiiqadii 79. Tababare Ole Gunnar Solskjaer oo la hadlay wargeyska Manchester Evening News kadib ciyaarta ayaa yiri waxa uu u muuqdaa mid ka dhaawacmay dhabarka waxauna mari doonaa baaritaan labada maalin ee soo socota. Waxaan rajaynaynaa inuu taam u noqdo kulanka weyn ee Liverpool ee maalinta Axadda aan la ciyaari doono haddii ayna wax kale inta soo bixin ayuu Ole Gunnar Solskjaer raaciyay warkiisa. xidiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa lagu soo waramayaa inuu isaga tagi doono kooxda United suuqa xagaaga dambe xilli ay kooxda Real Madrid iyo Juventus baacsanayaan xidigani sida laga soo xigtay shabakada Sky Germany. 26 jirkan ayaa la sheegay inuu doorbidayo inuu ku biiro kooxda Real Madrid xagaaga sida ay sheegayaan ila wareedyo ku dhow Sky Sport. United ayaa doonaysa inay haysato Pogba ilaa iyo dhammaadka xilli ciyaareedkan sabab la xiriirta inay suuqa ka helin bedelka xidigani, laakiin xidiga ayaa Old Trafford isaga caraabi doona xagaaga iyadoo United madaxa xidigani dul dhigtay lacag dhan 150 milyan oo euro. xidiga ka soo baxay akademiyada kooxda ayaa qalinka ku duugay 5 sano markii uu kooxda dib ugu soo laabtay isagoo ka yimaaday Juve waxa uuna heshiiskiisa dhacayaa 2022. Pogba ayaa xagaagii hore qirtay inuu doonayo inuu isaga tago kooxda Manchester United si uu u raadsado tartan cusub isagoo doonayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Kooxda Barcelona iyo Schalke 04 ayaa heshiis ku gaaray in daafaca Jean-Claire Todibo inuu si amaaha ilaa iyo dhammaadka xilli ciyaareedkan ugu wareego kooxda Jarmal kuwaasoo bixiyay lacag dhan 1.5 milyan oo euro. kooxda Jarmalka ayaa bixin doonta mushaharka ciyaaryahanka waxayna qiyaar u leedahay inay xagaaga kula wareegto 25 milyan oo euro oo kaasha iyo 5 milyan oo euro oo ku xiran xidigani iyo qaab ciyaareedkiisa. haddii Schalke 04 ay go'aansato inay xagaaga si joogto ah ula wareegto ciyaaryahankani, Barcelona waxay iyadana qiyaar u leedahay in mustaqbalka dambe ay ku soo ceshan karto xidigani 50 milyan oo euro oo kaasha iyo 10 milyan oo euro oo ku xiran qaab ciyaareedka xidigan. Jean-Claire Todibo ayaa 5 kulan u ciyaaray Barcelona tan iyo markii uu bishii Janaayo ku soo biiray 2019 kooxda. daafaca ayaa kulankiisii ugu horeeyay u saftay 15 Abriil ee sanadkii la soo dhaafay iyadoo waxa kulan horyaala oo ay la ciyaaraysay kooxda kubadda cagta ay Haske waxaana Barcelona sidoo kale u dheelay kulan Champions League. dhinaca kale kooxda Barcelona ayaa haddaba heshiis la gaartay xidiga qadka dhexe ee Matias Fernandes kaasoo ka tirsan kooxda reer Brazil ee Palmeiras. warbaahinta dalka Brazil ee Global Sport ayaa lagu xaqiijiyay in Barcelona 11 milyan ka bixin doonto xidiga qadka dhexe Matias Fernandes kaasoo ka tirsan kooxda Palmeiras. Fernandes ayaa noqon doona saxiixii ugu horeeyay Barcelona samayso intii laga bedelay ama laga cayriyay tababarka kooxda Barcelona Ernesto Valverde. maamulka horyaalka kubadda cagta Spain ayaa shaaciyay xilliga la ciyaari doono kulanka labaad ee El Clasico ee kooxaha Real Madrid iyo Barcelona kana dhici doona
doona garoonka Santiago Bernabeu ee magaalada Madrid. Kulankii hore ee labada kooxood ayaa dib u dhacay rabshado ka jiray deegaanka Catalonia awgii, waxaana la ciyaaray 18 bishii December laguna kala baxay barbaro eber iyo eber. Kulanka labaad ee horyaalka La Liga El Clasico waxay Real Madrid iyo Barcelona isku haleeli doonaan hoyga Los Blancos ee Santiago Bernabeu maalin Axada oo taariikhdu tahay March 1, 2020 marka ay saacadu tahay 9 fiidnimo. marka ay labada kooxood ku kala baxayaan ciyaartan waxay isla toddobaadkaasi la kala ciyaari doonaan Manchester City iyo Napoli oo lugta labaad ee wareegga 16 Champions League la ciyaari doonaan. Barcelona waxay salaasada usbuucaasi u safri doontaa wadanka Talyaaniga oo la soo ciyaari doonto kooxda Napoli, halka Real Madrid isla garoonkeeda Santiago Bernabeu ku martigelin doonto kooxda Manchester City maalin Arbaca isla toddobaadkaasi. Madaxweynaha horyaalka La Liga Betis ayaa sheegay in taariikhda iyo waqtigaasi la ciyaari doono. Ogolaanshaha iyo waliba waqtigaasi ayay noqon doontaa in TV-yada La Liga TV ay dadka reer UK si toos ah uga daawan doonaan, taasoo meesha ka saaraysa mar badan oo boqortooyada Britain laga diiwaangeliyay inay ciyaartani aysan la soconin. Xidiga ugu fiican laacibiinta u dhalatay wadanka Belgiumka ee ka ciyaara horyaalada dibadda ayaa lagu dhawaaqay, waxaana markii saddexaad oo xiriir ku guuleystay xidiga kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Eden Hazard oo labadii sano ugu horeeyay ku guuleystay. Abaalmarintan oo uu bixiyo wargeyska Hitler oo abaalmarintan bixiya ayaa waxa uu shaaciyay in Eden Hazard uu sanadkii saddexaad oo xiriir ah helay codadka ugu badan, isla markaana uu abaalmarintan ku garaacay kubad sameeyaha Manchester City ee Kevin De Bruyne iyo weeraryahanka kooxda Inter Milan ee Romelu Lukaku. Hazard ayaa helay 458 dhibcood, waxaana ku soo xigay kubad sameeyaha Manchester City Kevin De Bruyne kaasoo helay 348 dhibcood, halka Romelu Lukaku uu isna helay 248 dhibcood. Wargeyska waxa uu kale uu soo bandhigay 10kii laacibeed ee ugu dambeeyay ee ku tartamayay iyadoo Torgan Hazard uu yahay walaalka Eden Hazard uu ahaa ciyaaryahanka u tartamayay ciyaaryahanada ugu fiican. haddaba waa kuwee 10kii laacibe u tartamayay abaalmarintan iyadoo Eden Hazard uu ku guuleystay. Eden Hazard oo Real Madrid, Kevin De Bruyne ee Manchester City, Romelu Lukaku Inter Milan, Yuri Tielemans oo Leicester City iyo Witsel oo kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund, Vincent Kompany oo Manchester City, Dries Mertens oo Napoli, David Origi oo Liverpool iyo Tony Underwell oo Tottenham iyo weliba Torgan Hazard oo kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Waa hagaag daawadayaal, waxaynu soo gaarnay qaybaheennii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena aynu fiirino haatanna suuqa kala iibsiga iyo waxyaabaha laga qoray. wargeyska Liverpool ka soo baxa ee Liverpool Age ayaa sheegay in Liverpool ay diyaar u tahay inay rikoorkeeda suuqa kala iibsiga u jabiso xidiga kooxda kubadda cagta ee Leverkusen qadka dhexe uga ciyaaray Havertz. Reds ayaa diyaar u ah in 125 milyan oo gani dul dhigto xidigan reer Jarmal. agaasimaha kooxda Inter Milan Piero Azzurri oo ku sugan maanta magaalada London si uu ula kulmo kooxaha Tottenham iyo Chelsea, isagoo ka doonaya inuu dhameystiro saxiixyada Christian Eriksen iyo Olivier Giroud. Inter ayaa 8.5 milyan oo gani ku doonaysa xidiga ee Christian Eriksen, laakiin Tottenham waxay qiimeynaysaa in laba jibaar lacagtaasi ay hesho. Sky Sport Italy ayaa sheegaysa in jimcihii Olivier Giroud qandaraaskiisa Blues oo dhacaya xagaaga u ogolaanayo inuu qandaraas 2 sanadood ah iyo bar u saxiixo kooxda kubadda cagta Inter Milan. Paul Pogba ayaa u badan tahay inuu ka tagi doono kooxda Manchester United xagaagan, iyadoo Real Madrid iyo Juventus ay labaduba xiiseynayaan xidigan qadka dhexe sida ay sheegayaan Sky Sportka. 26 jirka reference ayaa jeclaan lahaa inuu ku biiro kooxda macallin Zinedine Zidane ee Real Madrid. United ayaa doonaysa inay ceshato Pogba ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedkan, maadaama aysan bishan bedelkiisa aysan suuqa kala iibsiga weli ka helin. Chelsea ayaa si weyn u doonaysa inay dhameystirto saxiixa kubad sameeyaha Real Madrid ee Francisco Isco, kaasoo ay ku iibsan karaan lacag gaaraysa 47 milyan oo gani sida ay qorayaan jariirada Daily Express. Si kastaba waxaa la sheegayaa in madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez uusan doonaynin inuu
lacag jaban ku iibiyo mid ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan kooxda. Madaxweynaha Lyon Jean Michael Aulas ayaa ku celiyay in kooxdiisa ay doonayso inay ceshato xidiga weerarka uga ciyaara Moussa Dembele kaas oo la xiriirinaya kooxaha Manchester United iyo Chelsea sida ay qorayaan Manchester Evening News. oo hagaag daawadayaal intaas ay ku eegayaan barnaamijkeena falanqaynta ciyaaraha inagoo Dalmar Cabdi Diiriye inta kan mid lamida ku kulmi doona waxaan idinka tagaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.